siyaasadeedka hilaac inaan waxoogaa iftiimin ama bayaamin ku yar samayno muran soo noqnoqday oo dhammaan waayay oo u dhaxeeya labada gole murankaasi gundhigiisaan doonaynaa maanta inaan bulshada la wadaagno annagoo ku salaynana annaguna waxaanu aaminsanahay saan wax u aragno murankaasi wuxuu ka soo bilaabmay maalintii golaha wakiiladu soo gudbiyeen golaha u soo gudbiyeen guurtida xeerkii ay soo waafajiyeen labada doorasho intaa kadib golaha guurtida dib u celiyay maanta guurtu dib ugu celinayeen wax ka bedel iyo kaabis bay ku sameeyeen marka laga yimaado qodobada kale hal qodob oo kaliya oo aka ugu muhiimsan ee imika muranku ka taagan yahay ama dhinac loo dhaqaajo aan wali lagu heshiin ayaa jira kaasina waxa weeyaan ka 20% ah haddaan tusaale idin siiyo doorashadu xilliga ay dhacaysa la iskuma haysto waa lagu heshiiyey qaabka loo galiyana la iskuma haysto waa lagu heshiiyey waa isa saar doorashadu oo cidii dani ma jirto mucaarad iyo xukuumadda saystaana ma jiraan bulshadeena waxaan doonaynaa inaan taa u iftiimino ishaysiga iyo muranka xaqiiqiga wuxuu yaalaa qodobka la yiraahdo 20% oo sheegaya in ururku 20% uu ka keeno gobol wal oo uu ku tartamo marka doorashooyinka tooska la galo qolo saasay leedahay saaha lagu galo doorashada qolo kalena waxay leedahay ma ee doorashadii maadaama doorasho toos la galayo laga dhigo hal dheeri oo ururkii hal cod dheeraada ururada kale ha noqdo ka guuleysta muranka weyn Soomaaliland maanta hor yaala waa ka golaha wakiilada oo ka kooban 3 xisbi xisbiga wadani xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye awal saasa lagu yaqaano 3 xisbi ka koobnaay laakiin maanta waxaad moodaa inuu dhexdooda ka dhacay waxaan isticmaali karaa kelmad la yiraahdo galalaf in cid dhex gashay oo ay xisbigi 3 xisbinimadii ka kaxaysay oo iyagoon xisbiba hayn ay haddana ka awood bateen xisbiyadii qaarkood xisbigii ucid oo kala maanta inuu xildhibaan leeyahay shaki bay igaga jira kulmiye laftiisa waa la hargafay wadani oo isagu xildhibaanadiisii haysta iyo cidda aan sheegay iyadu magaranaysa boobka sameysay xildhibaanada ah ayaa waxay isla garteen inuu midba mid maslaxadiisa u fuliyo wadani wuxuu doonay doorasho madaxweyne kaliya isaga ugu dhanayd doorashadii madaxweynuhu si ay ugu dhacdo waa inuu helaa maxaan ku dhahaa xildhibaano u meel mariyo xeerkii oo kuwiisii iyo kuwa ku darsaday si uu taa u helo cid kale oo saddexaad oo ah din siyaasi mugle oo ku amaanaya shaqada uu qabtay waayo uu dadaalay oo maxamuud xaashiye ayaa wuxuu sameeyay xildhibaanadii ama kulmiye qeybaha iyo qeyb maxaan ku dhahaa u ciidaha uu isku habaystay isaguna wuxuu doonayaa in doorashadu ku dhacdo 20% ama gobol walba maxaan ku dhahaa laga keeno 20% sidaasuna maslaxadiisa warka annaguna hilaac ahaan isagaanu ka soo horjeedno waxaanu aaminsaneen in hal dheeri lagu kala tartamo oo xisbiga guuleysanaya uu noqdo ururka guuleysanaya xisbi noqonaya uu noqdo midka hal dheeri dheeraada ururada kale muranka xaqiiqiga ee runta ee aan miiska hadda ka muuqan laakiin dhabta la isku hayo horta waa ka Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo hilaac oo goboladii galbeedka tirsanaya ayaa waxay rabaan in hal dheeri lagu galo doorashadii maxamuud xaashi oo isaguna goboladii bariga tirsanaya islana ilaa 4-3 gobol cod waad ka heli kartaa 5 aan idhaahdaba ayaa wuxuu leeyahay isaguna lagu galo 20% deedna wadani wuxuu yiri aniga qodobka la ii fuliyo idinkana tii kale aan idin fuliyo deedna isfahanka siyaasiga horta jira deedna guurtidaan barigi la wadaagnay wakiilada laftooda oo kala hadalnay iyo garawshiina ma siin guurtida garawshiina siisay qodobka way naga aqbaleen way gudbiyeen wayna ku dareen hase yeeshee golihii wakiilada oo aad jamciyadii awalba isfahansiga aqlabiyada ayaa hor taagan marka iftiimintayadan anadaan hilaacnahay maanta doonayna bulshada u iftiimna waxa weeyaan wad doorasho la iskuma diidana qaabka loo goliyana la iskuma diidana xilliga dhacayna la iskuma diidana halka qodob ee 20% iyo hal dheeri ayay maanta hawshu taalaa ka hilaacaana waxaanu leenahay war hal dheerida aasi waxay xal u tahay maanta wada jirkii ummadda Soomaaliland oo way nagu ceeb in doorashadii tan ka horeysay ay 3 xisbi galeen saddexdooda musharaxna ahaayeen hal qoys ama hal beel oo Soomaaliland kamid ah tan soo socotana sidii la qorsheeyay warbaltan ma ahayd ka sii dambaysa haddana masaasaynu ka dhignaa dood anagu aan wadana haddana hilaacnay waxa weeyaan in Soomaaliland wada jirkeedii dib loogu noqdo sida xal ku yahay ee adraafta ama xisbiyada darafyaduna ay wax ku heli karayaan oo ah hal dheerida in lagu eego doorashada
boqolkiiba 20 ka la ergayay golaha wakiiladu ay dabada ka eriyayna meesha laga saaro qodobkan maanta doonayna naftiibna ka la ahaan waa ka waxa kale oo ceeb iyo canaan dusha ka saaraya xildhibaanada laga soo doorto galbeedka gaar ahaan gobolka Awdal iyaga ay ahayd maanta inay wada jirka Soomaaliland ka shaqeeyaan xaqiiqda u dhaadhacaan sheegaan waxay danta dalka ugu jirto oo in caadifad iyo hebel baan saaxiibna hayo hebel kala ku xumee iyo madaxweynaha iyo xukuumadda eriyanayo ayna danta qaranka u ilaawin musabixi waa madaxweyne maanta uu jooga berina uu tagaya waan hubnaa inaanu waarin uu beri tagayo Soomaaliland dhan baa rabta in doorasho ay gasho oo de ama la bedelo ama isaga la soo celiyo hase yeeshee maxaan ku dhahay xildhibaanadaasi waxay mudnayd in maanta gobolkoodii oo markii ugu horeysay taariikhda xisbi ku hamiyay inuu yeesho inay de garab istaagaan oo yiraahdaan war maxaa adiga ku dana sidii wax ku helaysaa xilliyada kamida waanu sheekaysanay waanu shirnay oo waxbaanu isla garanay laakiin marka golaha la tagun baad moodaysaa inay nimankiiba hayn oo ay ilaawayaanba iyaga maslaxadii loo soo doortay iyo sababtii doorashadii tan ka horeysay haddaynu dib u yar milicsano gobolka Awdal cabashadiisa wada weydina waxay ahayd 13 xildhibaan baa la siiyay 13 xildhibaan kuma qanacsanin iyagii la soo doortay ee cabashada noocaay qabiba maanta haddana leh wixii hore waxba kama jiraan waayo maanta haddii Soomaaliland ku tartanto codka haldheerida rajada hilaac wuu fiicnaanaya oo sababtu tahay intuu goboladu isleey cod badan baad ka heli kartaa ayaa u saamaxaya laakiin haddii uu yiraahdo boqolkiiba 20 kootada ku gal Sool iyo Sanaag iyo meelo la mid ah wax laga yaabaa inuu ka hooseeyo isagoo codka ugu badan helay oo xisbinimo waayo marka bayaamintan maanta bayaamin horta intaas un bay ahayd qarankana in la wada ilaaliyo Soomaaliland oo dhan oo wada wadata oo la isku tiraasulo hal shay baan sheegayay waxa weeye Soomaaliland waligeed xeer kuma kala bixin xal mooyaane war maanta halkii bay taagan tahay xeerina kala wadi maayo ee xal aynu raadino xalkaasina ha noqdo mid cid walba qancin kara hebel hadduu wax ka tanaasulo wax laga dhaqaajiyay wax walba yaan laga dhaqaajin intaasaan ku soo gudnaanadayay mahadsantii waxaad sheegtay in ay idinku doonaysaan halleeri urur siyaasadeedka ka hadna uu doonayo 20% maxay ku kala duwan yihiin haddii aad bulshada u iftiimisay idinku ku door bidaysaan in halleeri aad heshaan maxamuud xaashi iyo xisbigiisuna ay ku door bidayaan in 20% ay helaan waxaan ku door bidnaa xaqiiqatan awal xisbiyadu markay tartamayaan iyagoo xisbiya ama tartami jirin waxa lagu tartami jiray golayaasha deegaanka markaa door ka qaadan jiray gobol walba nin walba intuu sharaxdo ayaa sababi jiray inuu xisbigaasi noqdo xisbi cod badan hela laakiin maanta doorashadii tii madaxweynuhu kale toos u tahay oo ururka toos loogu codeynaya waxaan doortay urur hebel adigoo urur hebel dooranaya 100 qof oo urur hebel doortay inay 20 qof oo urur hebelka kala doonto inay ka guuleystaan cadaalad maaha مثلا هدي maxaan ku dhahaa hilaac oo gobolada Soomaaliland oo dhan ka keeno tirayar laakiin xisaabta guud marka la isku daro oo gobol intuu badsado ama laba gobol badsado oo tirada keeno boqolkiiba inta ugu badan waxa ka guuleysanay micnaheedu tahay urur tirada ugu yar keenay laakiin gobol walba tira yar oo kooban oo intii laga rabay ka keenay marka anigu waxaan doonayaa doorashada si xalaal u noqoto in si daahfuran oo si tii madaxweynaha oo kala haldheeriya lagu galo oo aan cidna dabar loogu xidhin horta waxaanu kasbanay waxaanu kasban weynaa waliba anigu maanaan gaadhin wali urur baanu nahay sidii urur baanu macaamilanay awoodda maanaan saareen inaanu xildhibaano hore oo cid la soo baxday soo jiidano ama ka daba tagno ama helno laakiin de ururada qaar baa hortayo waxaad moodaa inay doodaasi sii bislaysteen oo intaan ururadan intaan xisbiyadan ka soo bixin ka hor nimankan la sii kala xidhay qof dhan oo xildhibaana oo afkii umadeed ku hadlaya oo inay umadi soo dooratay la arkayo oo haddana adoon aad moodo aan isagu go'aan lahayn ra'yi lahayn tala soo jeedin lahayn maslaxad ka hadli karin qadiyadan imka aan kala hadlayo xisbiyada nimanka aan sheegay mesela gaar ahaan gobolka Awdal ilaa 5-6 baan la sheekaystay nin walba wuxuu ku oranayaa bal hadda kelmadda dhageyso waa run maslaxadu waxay ku jirtaa hal dheeri laakiin tan waxaan u qaadanay waanu ka geyn weynay kelmadda waanu ka geyn weynay hadaynu fasirno waxay noqonaysaa de waa anaga go'aanka ma lihin weeyaan xildhibaan la doortay oo madax banaan oo xasaanad leh oo haddana sidaa u hadlaya waa ceebaha inagu soo kordhay xiliyadan dambe xildhibaan la leeyahay go'aan ma leh xildhibaanadii gobolka Awdal baad leedahay wax alla wax go'aan nimankaasi leeyihiin ma jirto oo ay go'aan haddii go'aan leeyihiin hal mar un bay taladoodu socon lahayd eeg in waa loo tanaasulay oo Soomaaliland maanta halkay mar soo arkay taladii waa la isla wada qaato doorashada inay dhacdo la israaciyo labadii doorasho halkaasi waa aqlabiyadu way isla wada gashay laakiin halka qodob oo kaliya maanta calaamad su'aal saaranta
ma doorasho toosa la galaa oo loo siman yahay ilaa cidna lagama reebayay mise doorasho tii aynu awal geli jirnay ururada magaranaysa xildhibaanada golaha deegaanka lagu soo baxay ahayd boqolleyda oo 20 boqolkiiba inuu ururku ka keeno gobol walba si way u qurux badan tahay laakiin de noocii baynan maanta ku gelin idinku weli ma la kulantan xildhibaanada gobolka Awdal maadaama urur siyaasadeedka hilaac tihiin hilaacna loo tirinayo gobolkii Awdal xildhibaanadii gobolka Awdal ma la kulanteen kulamo ma la qaadateen arrimahan aad doonaysaan ee gobolka Awdal u dana ma kala hadashay mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha oo gaargaar maaha oo gooni maaha oo guud ahaan maaha intaas soo goor baan la kulannay wax alla wax nimankaas gobolkooda ay ugu filan yihiin iyo wax Soomaaliland ugu filan yihiin oo la sheegi karaa ma ururka inay ku qancaan ku qancin waa halkeeda laakiin de Soomaaliland ma quruxdeedu wuxuu ku jiraa idinkuna aad la qirsan aan qirsanahay Soomaaliland qurux badan wax lagu heli karaa inaan saddex nin oo ilmaadeer aan doorashada ku tartamin wadada loo mari karay kaliya waxay tahay in doorasho madax furan ama doorasho furan oo hal dheeri lagu soo kala baxay ururada ku soo kala baxayaan la galo